qof Soomaaliyeed oo xis leh oo caqli leh oo damqanaya inuu yiraahdo Axmed baan inuu soo noqdo mar labaad mar saddexaad Jubbaland inuu ku soo noqdaan anigu muxuu ahaa yaan taageeraya qof ay ka suurowdo oo Soomaali iimaanta ma jiro war Axmed ninna ma raaco qof uu raaco iyo qof uu muxuu ahaa wax la wadaago iyo qof uu muxuu ahaa wax la jecel yahay midna ma jiro naftiisa aan ka ahayn Axmed dabcan doorashada uu qorsheynayo waa mid uu noo wada yiri isagu laakiin ku talagalkiisu xogaha iyo wararkana soo gaaraya hordhaca waa mid sidii caadada ahayd uu doonayo inuu isku caanashubo annaga ujeedadayadu maxaan ku dhahdaa ma aha inaanu amni darro inaanu abuurno ujeedadayadu ma aha inaanu cidna hadda maxaan ku dhahdaa farta ku fiiqno ujeedadayadu ma aha inaanu dadku waxaysan rabin inaanu ka shaqayno war Axmed ma taqaanaan baabuurka wuu ka boodi doonaa meel runtii aad u xunna wuu ka boodi doonaa waxaa la yidhi hununa hadal ma ah hindiriigsina wax arag ma ah dadku inta badan siyaasadda iyo sida intelligence-ga looga shaqeeyo way kala duwan yihiin ninka siyaasigu waa inuu cadeeyo oo qeexo muxuu ahaa waxa uu aaminsan yahay anigu waxaan qeexayaa oo aaminsanahay Jubbaland inay doorasho ka dhacdo doorashadaasuna uu noqdo doorasho horseeda isbedel muxuu ahaa yimaada ayaan aaminsanahay bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah waxaan ilaahay ku mahadinaynaa safar aan saaka ka soo baxnay magaalada Muqdisho noo sahlay inaanu ku soo gaadhno magaalada Kismaayo dabcan safarkaas oo ah mid aan muxuu ahaa ku aadanaa ololaha doorashada la filayo in uu ka bilowdo magaalada Kismaayo runtii waxaan oranayaa waa invitation ama maczuun oo na maczuumay ninka odayga ah oo la yiraahdo Axmed kadib markii uu iclaamiyay ama sheegay inuu qorsheynayo in uu doorasho uu qabsado isagu doorasho isagu leeyahay waxaa la yiri Soomaalidu waxay hore u tiri laba nin baa lagdamayay marka nin baa wuxuu ku yiri labadii wiil mid kamid ah war wiilka iska xaj marka wuxuu yiri wiilkii wuxuu yiri waad noo wada tiri marka Axmed dabcan doorashada uu qorsheynayo waa mid uu noo wada yiri isagu laakiin ku talagalkiisu xogaha iyo wararkana soo gaaraya hordhaca waa mid sidii caadada ahayd uu doonayo inuu isku caanashubo laakiin waxaan rabnaa inaanu cadeyno haddii aanu nahay bahda ama muxuu ahaa midowga musharaxiinta Jubbaland inuu xilligii hore ka duwan yahay dadku inay dadkii hore ka duwan yihiin marxaladaha ku xeeran muxuu ahaa xaaladda hadda jirta inay xaaladii hore ka duwan yihiin jawigu inuu jawigii hore ka duwan yahay marka waxaan rabnaa inaan xusuusino in doorashada haddii uu qabanayo dabcan annagu runtii waaba tiigsanaynay inay doorasho Jubbaland ka dhacdo waaba tiigsanaynay laakiin midda aanu tiigsanaynay ma aha mid hadda wararkeedu tuuna soo gaaraya runtii ma aha midaanu aqbali doonana ma noqon doonto Soomaalidu waxay tiraahdaa waayeel orodkiisu waa intaan la arkayn hadda intii muxuu ahaa fashilaad iyo waxaan dadka Jubbaland u baahnayn ama aan u qalmin intii uu dhici lahaa waxaanu runtii aan jecel lahay wax loo dhan yahay oo qof waliba uu fursad iyo galaangal u yeelan karo
inuu kaga bogto sida muxuu ahaa uga qayb qaadan lahaa doorashadaas waa midda aan anigu hadda u imid waa midda aan rajaynayo dad kale oo quudaraynaya muxuu ahaa positionkan muxuu ahaa madaxweynaha inuu yimaado qof walba oo uu ka hayo hunguri ka hayana runtii de xaq buu u leeyahay inuu tartamo uu ka bogto inuu ama ilaahay baa dee waxaan qadaray inuu helo iyo inuusan waayin inuu waayo waa meesheeda midda kale oo runtii mararka qaarkood aad jeceshahay waxaad horey uga digtay in ay timaado natiijadeedii runtii mararka qaarkood waad ku farxaysaa ma odhanayo laakiin waxaa dee qof walba muxuu ahaa u noqonaysa waaye aragnimo dee qofka marka ugu dambaysa dee lagu qiimeeyo wuxuu shalay ka digay hadday maanta yimaadaan ilaa warheer ninkii hebel ahaa wixii uu sheegayay run bay ahayd muxuu madaxweynaha iyo prime ministerka Soomaaliya dabcan anigu marar badan shir jaraa'id ama muxuu ahaa qoraal aan runtii soo bandhigay waxaan ku cadeeyay oo ku cabiray war Axmed ma taqaanaa baabuurka wuu ka boodi doonaa meel runtii aad u xun wuu ka boodi doonaa marka dadka reer Jubbaland waxa ay doonayaan oo ah inay helaan hoggaan iyagu ay xusheen fursad ha loo siiyo ayaan marar badan runtii aan soo bandhignay laakiin hadda maanta waa caddaatay shalay wixii aanu sheegaynay haddii ay mararka qaarkood dee loo riixayay ama loo jiidayay Axmed waa nala socdaa war Axmed ninna maba raaco qof uu raaco iyo qof uu muxuu ahaa wax la wadaago iyo qof uu muxuu ahaa wax la jecel yahay midna ma jiro naftiisa aan ka ahayn marka dadka Soomaaliyeed cid kasta iyo muxuu ahaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka intaba waxaanu rabnaa inaanu la wadaagno dadka reer Jubbaland maanta inay diyaar u yihiin isbedel waxaanan runtii cid walba kaalinta ay ku yeelanay karto ka codsanaynaa muxuu ahaa inay arintaas taageero muxuu ahaa ama moral ama siyaasadeed intaba inay siiyaan maalin dhaweeyta waxaan dhageysanayay ninka la yiraahdo madaxweyne Siciidani oo ka hadlay inuu muxuu ahaa taageersan yahay Jubbaland muxuu ahaa waxa ay qorsheynayso inayna xaq u leeyihiin dabcan anigu sida aan u fahmay waxa weeye ma aha in uu u jeeday Axmed Madoobe ayaan taageerayaa aniga waxa weeye waa fahamkayga waxay ahayd Jubbaland inay dadku qofkii iyagu hogaamin lahaa inay doortaan xaq bay u leeyihiin baan anigu u fahmay laakiin hadda qof Soomaaliyeed oo xis leh oo aqli leh oo damqanaya inuu yiraahdo Axmed baan inuu soo noqdo mar labaad mar saddexaad Jubbaland inuu ku soo noqdaan anigu muxuu ahaa yaan taageerayaa qof ay ka suurowdo oo Soomaali maanta ma jiro waxa weeye waxaan ka digaynaa oo runtii aan uga nasteexaynaynaa cid kasta oo ka shaqeynaysa waxaan dadka reer Jubbaland uusan qalmin ama uusan rabin waxa weeye cawaaq xumo ayay ku dambaynaysaa marka waxaad ogtahay natiijadeeda barrita aad ogtahay inaad maanta u bareerdo oo aad ku dhiirato waxba ma tarayso runtii dadka ama siyaasiyiin ha noqoto ama aqoon-yahano ha noqoto ama ganacsato ha noqoto ama odayaal ha noqoto haween civil society ka dhamaan reer Jubbaland waxaanu la yeelan doonaa kulamo iyo shirar aanu muxuu ahaa kaga waramayno aniga shakhsiyan hadafkayga iyo ujeedooyinka iyo manifestadayda waxaanu runtii isku dayi doonaa inaanu qof walba meeshiisa ugu tagno waxaanu aaminsanahay la wadaagno insha Allah biidhnillaahi kariim ayagana waxaanu ka rajaynaynaa inay maanta
isgoyskaas Jubbaland taagan tahay meesha wadada saxdii ay maaragtay marayso way caddahay inay u diyaar garoobaan wadadaas inay qaadaan ayaan ka rajaynaynaa dadka reer Jubbaland dhammaan muxuu ahaa cid kasta oo nabadda iyo wanaagga iyo horumarka Jubbaland jecel annaga ujeedadayadu maxaan ku dhahdaa ma aha inaanu amni darro inaanu abuurno ujeedadayadu ma aha inaanu cidna hadda maxaan ku dhahdaa farta ku fiiqno ujeedadayadu ma aha inaanu dadku waxaysan rabin inaanu ka shaqayno marka hadee qofku intaas markuu yahay way caddahay waxa uu doonaya inay tahay oo kaliya wanaag inuu yahay marka midda labaad waxaan leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawladdii federaalka ee Soomaaliya anigu ra'yi ahaan waxa weeye waxa la yidhi hununa hadal ma hinbiriirsina wax arag ma dadku inta badan siyaasadda iyo sida intelligence-ga looga shaqeeyo way kala duwan yihiin ninka siyaasigu waa inuu caddeeyo oo qeexo muxuu ahaa waxa uu aaminsan yahay anigu waxaan qeexayaa oo aaminsanahay Jubbaland inay doorasho ka dhacdo doorashadaasuna uu noqdo doorasho horseeda isbedel muxuu ahaa yimaada ayaan aaminsanahay taas weeye midaan hadda maanta u imid taa weeye midaan raba inaan ka shaqeeyo taa weeye midaan u taagnahay aniga iyo rag iyo gabdho kalaba marka waxa weeye mararka qaarkood hadii la garan waayay ama la isweydiiyo ama tuhun galo waraaga muxuu aaminsan yahay waxaan aaminsanahay u taagnahay waa midaan weeye taasana ka shaqeyn doonaa Ahmed iyo cid kale oo kasta oo maxaan ku dhahdaa door ku leh hawshana taa weeye midda aan doonayno inaan si nabad ah oo wanaagsan inaanu maaragtay kaga gudubno hadii aan la yiraahdo dabcan waa hordhac weeye saacado kooban ama hadii aaban iraahdo daqiiqadooyin kooban baan hadda joogaa ka bacdi markaan la tashiyo la sameeyo bulshada iyo dadka la sameeyo ayaan maartay shir jaraa'id iyo muxuu ahaa kulamo waaweyn qaban doona hadii aan la yiraahdo maanta intaasaan ku ekaysiin doona aad baad u mahadsantihiin waanan runtii ku faraxsanahay inaan maanta aan fursadan u helay anagoo Kismaayo joogna inaanu maartay fariintan idin soo gudbino salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh